qarankiisa waxaa looga yaqaanay boqorka markaas oo xulka qaranka ee dalka Turkiga uu ku loolamayay guusha bilada Maarta oo ay ku guuleysteen sanadii 2002. Hakan Shukur haliyay qaran haatanna ah wada tagsi isla markaana iibiyo buugaagta. Waxaa lagu xasuustaa in uu dhaliyay goolkii ugu degdegsiyaha badnaa ee abid laga dhaliyo koob adduun, waxaana ay ku qaadatay inuu dhaliyo gooshaas 11 ilbiriqsi. waxa uu dhaliyay durbadiiba markii la baasay kubadda oo tiilay bartanka xerada lagu cayaaro. iyadoo aan ka xiganayno wargeys ka soo baxa dalka Germany oo lagu magacaabo Welt am Sonntag, waxa uu ku andacoonayaa noloshiisa in uu kala firdhiyay Erdogan oo ah madaxweynaha dalka Turkiga, waxaana xaaladiisa dhaqaale ay hoos u dhacday tan iyo markii uu ciyaaryahankan hore uu ku biiray siyaasadda kadib markii uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta sanadkii 2011. waxa uu ku guuleystay sanadkii 2011 kursi baarlamaan oo uu ku matalayay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee uu madaxda ka yahay Erdogan. hase yeeshee Hakan Shukur ayaa lala xiriiriyay mar kale caalimka islaamiga ah ee Turkiga mucaaradkana ku ah Erdogan, Fethullah Gulen. hadda waxa uu ku nool yahay California, Mareykanka. waxa uu sheegay in markii uu yimid Mareykanka kadib musaafirin dalka dibadiisa ah ay xukuumadda Erdogan ku sameysay in uu furtay meel maqaaxi ah, hase yeeshee uu iska xiray kadib markii uu noloshiisa uga baqay dad isaga dhibayay. waxa uu sheegay dhammaan in ay xanibtay xukuumadda Erdogan hantidiisa, xisaabaadkii bangiga uu ku lahaana la joojiyay, lana fariisiyay lacagtii bangiga u taalay. waxa uu iska fogeeyay dhammaan eedeymaha ay dowladda Turkiga ku haysato oo ah in uu ka tirsanaa koox ka dambeysay afgambigii dhicisoobay xagaagii sanadkii 2016 ee ka dhacay Turkiga.